قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، ولا ليال محاضرة كواد إمام مانتين كواد وحكوسة سنة دونتا دور كان ليرada ay ku leedahay mujtamaca. marka muxaadarada qiyamka ah waxaan oo qaabadigi doono sheekheena oo taqaanaan oo u baahnay taariifina ka bixiyo Sheekh Mustafa Haji Ismail. Sheekh Fulay tafadhal mashkuura wa mahjuura. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. sida walaalku sheegay qaybta kooban ay igu soo aaday waa masalada ku saabsan dowrka ama kaalinta ay ku leedahay dhalinyaradu bulshada, siiba dhalinyaradan galbeedka joogta. kama warramayno dhalinyaradii joogtay caalamul islaami ee waxaan ka warramaynaa dhalinyarada galbeedka joogta. markaynu isticmaalno erayga dhalinyaranimo, yaa dhalinyaro ah, tacriifka ama taxdiidka ama qeexidda ereygaa la qeexaa, aragtiyada dadka wax qeexa ama culimada waa ku kala gedisan yihiin. qaarkood aragti biology bay qaataan oo sheegaysa inay tahay marxalo cumriga ka mid ah. waa marxalada ama heerka uu qofku jidh ahaan iyo caqli ahaan iyo nafsi ahaanba uu koraya ama se uu dhammaystirmo. qaar waxay dhahdaan waa 15 jir, 15 halkani hadli maayo. بسم الله. ودا marka iyaga agtooda qaabkood waxay dhahaan waa 15 ilaa 25 inta u dhaxaysa. qaar kalena waxay dhahaan waa 13 jir ilaa 30 jir inta u dhaxaysa. culimada psychology-gu isagoo itijaah kale psychology ah jiro tilmaama waa laba shay oo la isku daray bay leeyihiin. mid waa sinul buluugh, min sinil buluugh, qofka laga bilaabo waqtiga uu qaan gaadho ilaa ay intuu kaga biiraya bay yidhaahdaan ilaa caalim ar-raashidiin al-kibaar, waxgaradka quman ee waaweyn inta uu kaga biirayo. oo waxay rabaan inay dhinac dhigaan thaqaafada bulshada iyo qaangaadhnimada la isku daro. waayo qof baa jira bay leeyihiin qaan gaadhay oo wali caruur ah, caqliyan aan korin. marka waa in qaangaadhnimada ay la socotaa maxay thaqaafadii bulshadu si loo tilmaamo qofku heerkuu gaadhi karaa. qaar kale waxay tilmaameen inay masaladuba tahay dowr ijtimaaciya, inaanay da-da ku salaysnayn. walidaalika baan bulshooyinku isku mid ahayn inta lagu qaan gaadhaa. bulshooyinka qaarkood qofku markuu qaan gaadhaba waa qof mas-uulah. bulshooyinka qaarkoodna ilaa iyo 18 uu sii dhaafo oo waliba muddo sii weydaarta mooyaane
looma xisaabiyo inuu yahay qof mas-uula. يعني في الشريعة الإسلامية qofku hadduu qaan gaadho waxaa la tilmaamaa amaama allahi wa amaama almujtamac inuu mas-uul yahay, laakiin waa in loo tarbiyeeyaa qaabkaasi oo ah mukalaf buu yihi oo shareecada islaamigaabuu mukalaf ku yahay oo aakhiro isaga acmaashu sameeye la weydiinaya oo salaadiisa oo cibaadaadkiisa oo caqiidadiisa oo sama iyo xumo wuxuu sameeyaaba waa maktuub. haddaba markaynu iska soo duuduubno waxaynu odhan karnaa shabaabnimadu waa xilli ka mida cumriga qofka bini aadamka ah oo ku astaysan koritaan degdeg ah, inuu qofku xoog u koro. markuu yaryahay koristu way gaabisaa, markuu shabaabnimada ka baxana koristu way gaabisaa. intaasaa dhexe uu shabaabka yahay waa inta koritaankiisa jidheed uu si dhaqsaa u koro, koritaankiisa caqliyeed uu si dhaqsaa u koro, koritaankiisa nafsiyeed psychologically uu si xoogan u koro. waa waktiga uu jecel yahay inuu tadxiyaadka samayn karo, inuu naftiisa mabaadi'da iyo wuxuu rumaysan yahay inuu u huro. waa xilli markaa astaamo badan oo culamaai nafsi iyo culamaai ijtimaac ba ay tilmaamaan uu leeyahay. qur-aankuna wuxuu ku tilmaamayaa الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. إلهي سبحانه وتعالى حيدنا بوري حالة ضعف يدك وقصوغا كدبنا أود بيدين ياله كدبنا ضعف بعد بقول نقطان فترة دحى ayaynu odhan karnaa waa fatrat shabaab. waa fatro ama waa wakti nusuusta qur-aanka iyo xadiidku ay tilmaamayaan xayiwinimadeeda, noolaanteeda, qofka firfircoonidiisa iyo waxqabadkiisa, qofku jir ahaan iyo maan ahaanba inuu koray. haddaba waxaan leenahay dowrka addowr yani waa kaalinta uu bulshada ku leeyahay maxay tahay. aniga aragtidayda si kooban haddaan u tilmaamo waxaan odhan karnaa dhalinyaronimadu waa kaalinta isku xidha waalidka, aabbayaasha iyo hooyooyinka iyo mustaqbalka. waa kaalinta isku xidha. yacni waalidku da- buu joogaa, uu soo noolaaday, wax badanna uu la soo noolaaday, mustaqbal umadeedna wuu sugayaa. cidda kaalintaa qaadanaysa markaasi inay mustaqbalka formationkiisa ama qaabku u ekaanaya qaabaysa waa qofka dhalinyarada lagu tilmaamo. idan qofka dhalinyarada ahi waa alxajar ilasaasi ama waa bayska ama waa halka uu ka bilaabanto dhismaha guryuhu iyo dhismaha umadeed iyo dhismaha bulsheedba. waayo bulshadu waa guryo isu tegay, guriguna wuxuu ka bilaabmaa maxay? inan iyo inin isguursaday. haddaba kaalinta aynu ka rabno inanta ama inanka dhalinyarada ee galbeedka jooga, kama hadlayo wiilka iyo gabadha dhalinyarada ee jooga caalamulislaami kama hadlayo. waxaan ka hadlayaa wiilka iyo gabadha dhalinyarada ah ee muslimiinta ah ee soomaaliyeed ee jooga reer galbeedka, waddanada galbeed ku koray, ku dhashay, ku kobcay, wax ku bartay. kaalintiisu waa maxay? maxaa laga rabaa bulshada inuu qabto? aniga aragtidayda laba shay baa ugu muhiimsan. waxa laga rabo waxaa laga rabaa inuu helo hiqada, kalsoonidii aabihii iyo hooyadii inuu helo, iyo kalsoonida bulshada uu la nooliyay inuu helo. qofka dhalinyaradii goormuu labadaa gaab buuxin karaa? inuu noqdo waalidkii dhalay ama bulshadii uu ka soo jeeday inay ku faraxsan yihiin koritaankiisa iyo kaalinta uu hayo, bulshada iyo ummadda uu la nool yahayna ay ka raallitoo ku faraxsan tahay kaalinta uu hayo. goormuu hiqadaa dhalin karaa? si kale haddaanu tilmaamo, aabbayaashin iyo hooyooyinkiin
way yimaadeen iyagoo ka soo guuray oo ka yimi dhul aan dhulkan ahayn, dhaqan aan dhaqankan ahayn, af aan afkan ahayn. waxay dhex yimaadeen oo u yimaadeen bulsho aan la af ahayn oo aanay afgaranaynin, aan la dhaqan ahayn oo aanay dhaqankooda garanaynin, aan la caadaad ahayn oo caadooyinkooda aanay garanaynin. waxay yimaadeen bulsho aanay aqoonin xataa xuquuqda iyagu leeyihin iyo xaqa lagu leeyahy aanay si fiican u aqoonin. waxay koreen ama waxay dhex joogeen bulshadatan, iyaga markaa noloshooda oo dhami waxay ku luntay adjustment or adaptation, siday ula qabsan kari lahaayeen bulshadatan. afbaro, shaqo baro, shaqo tag, caruur kori, caruurtaada ilaali. waalidka wuxuu shaqadiisii iyo xooggiisii oo dham ku dhammaaday isaga halkan yimi ee waddanada reer galbeed ka yimi. adaptation, siduu ula qabsan kari lahaa waddanada tan uu yimi. waddankii afka ma garanayo, isagoo qof weyne buu isku dayayaa afka inuu barto. xataa afku bartay waa af godoloolo tiro badan leh, waana aada u xoogganayn. waa af aanu ku cabiri karin ama ku sheegi karin wuxuu dareemayo o dhan. qofka bini aadamka ahi dareemadiisu waa cajiib. haddii dareenkaagu kaa soo bixi waayana ciil baad u baktiyaysaa. waxa aad dareemayso markaad odhan kari weydo, fikraddaada markaad cabiri kari weydo, waxa aad rumaysantay markaad sheegi kari weydo, dhib ka badani ma jirto qofka bini aadamkaa ku dhaca baan odhan karaa. waayo waa qof bini aadam oo xabaalan, aragtidiisii, caqiidadiisii, afkaartiisi, wixiisii oo dhami ku xabaalan yihin oo odhan kari la. idan waalidkiin wuxuu yimi waddankan isagoo qofkaasi gariibka ah, stranger, qof gariib ah oo waddan kale ka yimi oo dhaqan iyo caadaad iyo af kala sita ayuu halkan yimi. noloshiisa intii u badnaydna wuxuu ku bixiyey inuu fahmi karo, la noolaan karo, afgaran karo ummaddan uu yimi iyo waddankan uu yimi. qodobka labaad ee waalidkii inuu qabay waxa weeyaan cabsi. bini aadamku waxaanu aqoon ku cabsadaa. diintiisu u cabsanayey, oo akhlaaqiyaadkiisu u cabsanayey, oo caruurtiisu u cabsanayey, oo haweenkiisu u cabsanayey, oo noloshiisoo dhamme cabsi bay ku salaysnay. war waxaaga saad u ilaashataa. waayo wuxuu dhex yimi bulsho ka xoog badan, ka xoolo badan, ka cilmi badan, ka gadisan buu u yimi. mana rabo inuu luusgareeyo, inuu waayo dadnimadiisi iyo caruurtiisi iyo reerkiisi iyo wixiisi inuu waayona ma rabo. inuu meesha ku noolaadana waa u yimi. inkastoo laga yaabo markii hore uu imanaya inuu islahaa waxoogaa sanadaa joogo, dabeetana meeshaadii baa hagaagi doonta, waad noqon doontaa 5, 6, 7 sannadood intaad joogto dhulkaagii baa kuu hagaagi doona, waad noqon doontaa. waxaan dhallinyarada leeyahay markaa, waalidkiin kaasuu yimi isagoo caynkaasi yahay, isagu saasuu u koray oo u jooga. idinkuse waa ka gedisantiin. idinku kow halkaa ku indha kala qaadeen ama ku barbaarteen. afka ummaddan baa si fiican u fahamtaan. waxaad doonaysaan baa cabiri kartaan, odhan kartaan. waxa laydinka doonaya baa garan kartaan. xuquuqda laydinku leeyahay baad fahmi kartaan. waxaad xaqa u leedahay baad garan kartaa. idan adigu qof ka gedisan baa tahay waalidkaagii meesha ta yimi. qof ka gedisan baa tahay. jahligii waalidkaa qabayna ma qabtid, cabsiduu qabayna ma qabtid, oo adigu nin yaroo halkan ku dhashay oo isagoo swedishunis arkay baa tahay. laakiin dowrkaagu waa maxay haddaba? kaalinta lagaa rabaa waa maxay? kaalinta lagaa rabaa waxa leeyahay waa laba hal. kalsoonidii waalidkaa inaanad luminin iyo kalsoonida bulshada inaanad luminin. kalsoonida waalidkaa sidaanay u lumaynin. laba shay waalidkaa hadduu helo wuxuu kuu arkaa inuu odayguna guulaystay iyo hooyadu adiguna inaad guulaysatay buu ku arkaa. labadaa miqyaasoo qura, laba halbeeg, laba barometer oo wax lagu qiyaaso quru waalidku hayaa marka hadda. labada barometer oo waalidku wax ku qiyaasaya waxa weeyaan intuu qofku diintiisa iyo dhaqankiisa haystaa, intuu inankaagii yahay weeyaan. waalidkaa ma rabo inaan la diin ahayn ama la dhaqan ahayn inuu haysto, ma rabo. wuxuu kuula soo ordaya, kuugu dadaalaya waxay ahayd inuu taa helo. marka waalidkaa wuxuu raadcaynaya kow
intaad isaga mateli kartaa waxay ku xidhan tahay inta aad diintaada iyo dhaqankaaga haysato. ka labaad ee waalidku wax ku qiyaasaya waxa weeyaan madaa tacallumik aw madaa tasalluxika bilcilm, intaad wax baratay. waayo wuxuu arkaa bulshada tan qof wax bartay uun inuu wax iska dhicin karo, qof wax bartay uun inuu ku noolaan karo. marka waalidku miqyaaska uu arko inuu wax ku qiimeeyo iyo guushiisa waxa weeyaan ilmihiisa hadduu labadaa ka arko, dad dhaqankoodi iyo diintoodiina haysta waxna baranaya hadduu arko, wuxuu arkaa waalidku inuu guulaystay. idan waxaan idin leeyahay dhalinyaroy, si aad waalidkiin u raali gelisaan, dowrka koowaad ee idiin furani waa kan. dowrka koowaad ee idiin furani waxa weeyaan in diin laydinka helo iyo dhaqankii. shayga labaad ee idiin furana la rabaa in laydinka helaa waa maxay? inaad wax barataan oo aqoon yeelataan si aad bulshada tan ula noolaan kartaan. labadaa haddaad samaysaan waxaad ku guulaysateen inaad waalidkiin isfahamtaan. in badan oo idinka idinka mid waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan waalidka iyo waa isfahmi kari la-aanay, waa isgaran kari la-aanay, waa wada shaqayn kari la-aanay. waa labadaa shay oo qura waalidku intuu doonayo. isagana waa inaad ogaataa dhibta haysatay labadan kale inay tahay wadankan oo isagoo wan yimi oo jaahil ka yahay oo afkiisa aqoonin oo dhibtiisa haysata, iyo isagoo cabsi qabay uu kuu cabsanaya adigu inaad ka lunto ama ka ambato, adiga iyo hooyada iyo carruurtiin iyo intii iyo isaga laftiisiiba uu ka cabsi qabay. hadduu labada dadka kaa helo wuxuu rabaysanyay wixii uu ka cabsanayay inuu ka badbaaday. shayga labaad ee laga rabaana waa maxay? waxa weeyaan bulshada maxay kaa rabtaa, ama bulshada Soomaaliyeed ee waddankan degan ama bulshadan Swedishka aad la degantahay maxay kaa rabtaa? iyana waxay kaa rabaan qof bulshada kaalintiisa ku leh inaad noqoto. goormaad noqonaysaa qof bulshada kaalintiisa ku leh? waxaad noqonaysaa qof shakhsiyad dhisan oo waxtara markaad noqoto, aan culays ku ahayn. bulshadu, dawladdu lacag bay kugu bixisaa, iskuulinkaaga lacag bay ku bixisaa, noloshaada lacag bay kugu bixisaa. maxaa dawladda iyo bulshadu da-yarta waxaanoo lacaga ugu bixinaya? iska xaq un bay dadka barhbaa isaga haystaa, xuquuqunaad iska leedahay tahay maaha. xaq way tahay, laakiin xaqan goormaada yeelatay? wixii lagaa rabay marka lagaa helo. dawladdu waxay dadka u maal gashanaysaa inay noqdaan dadkii mustaqbalkan waddankan dhisi lahaa. aqoon-yahankeedii, shaqaalaheedii, xoogsatadeedii, dadkii afkaar iyo caqli soo kordhin lahaa inaad tahay. haddii ay aragto dawladdu markaa ama community-ga ama bulshooyinka aan la nooshin inaydan dad bulshada culays ku ahayn, ee dad bulshada mustaqbalkeedii matalaya inaad tihin. bulshada goormaad culays ku tahay? markaad wax baran weydo, markaad darag dhilar noqoto, markaad suuqa u baxdo, markaa bulshada culays baad ku tahay. waayo waxay dareemayaan bulshadan wax wanaagood soo kordhinaysaa inaanay jirin. dadka barh baa waxay is leeyihiin wadaadnimada iyo mintidnimada iyo waxaasay dawladdu nacabtahay male. haddaad hablaan raacdo oo habluhu ilmada raacaan oo xashada cabaan oo suuq gashaan, dawladdu way ku jeclaanaysaa ma aha. bulshadani wax kuma qiimayso. drop out-ka dadka lumay bulshada wax kuma qiimayso. bulshadani waxay wax ku qiimaysaa 20ka soo socda ee sannadood Sweden say u ekaan doontaa. waxay u ekaan doontaa 20ka soo socda waxaa la rajaynayaa dadkeedii 50 jir soo gaadhay hadda jooga 20ka soo socda inay maran doonaan. idan 20ka dadka dhashay ee yimi ma bedeli karayaan dadka mise bedeli kari maayaan? kaalintoodii ma qaadan karayaan mise qaadan kari maayaan? goormaad qaadan karaysaa? goortaad qof wax bartay oo shaqaysanaya oo bulshada ka mida tahay. haddaba su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan labada kaalimood ayaad bulshadan ku leedahay. in dawladda iyo ummaddu waxay kaa sugaysay kaa hesho. waalidkii ku dhalay oo ku korsaday wuxuu kaa sugayay inuu kaa helo. labada kaalmood si lagaaga helo waxaad u baahantahay kow, ugu horeyn inaad caqiidadaada dhisto iyo diinkaaga. maxaan caqiida iyo diin ugu horreysiiyey? caqiidada iyo diintu waxay yihiin qofka waxa ka ilaaliya afkaarta haddaamka ah. dunidan sharka iyo khayrku way baratamayaan. sharka iyo khayrku loolan bay ku jiraan.
waddankan aad joogtaan bulsho wax duminaysaa waa joogtaa oo rabta inay safkeeda kugu darto oo drug dealers leh oo tuug leh oo dad aan mustaqbalka oo tuuga leh oo aan mustaqbalka waddanka ka fikirayn waa joogaa cagsigeeda waxaa jooga bulsho iskuulla kuu samaysay oo jaamacad samaysay oo goobo laga shaqeeyo samaysay oo waxa ka samaysay oo rabta inaad horumarto labadaa bulsho koox waliba waxay jeceshay inaad iyaga ku biirto koox waliba inaad iyaga ku biirtaa bay jeceshay maxaa kooxda wanaagsan kuu dari kara qofka muslimka ah koox waxaa kuu dari kara inaad ka nabad gasho mufsidaadka waxyaabaha dadka fasahaadiya meelaha xanuunku ku badan yahay maxaa la sameeyaa qof bini aadama haddii loo dirayo meel xanuun ku badan yahay waxa koowaad ee laga fekeraa waxa weeyaan waa tatciim waa vaccination soo maha in qofka la tallaalo oo waxaa la leeyahay qofkani bulsho aan caafimaadkeedu fiicnayn buu ku dhex jiraa marka waa inuu ka tallaalaadaa xanuunkan uu rabo inuu bulshada ka daweeyo adigoo aan tallaalayn haddii lagu yidhaahdo dadka daweeyo waxaa fududaanaysa inay adna ku qaadsiiyaan maxaa tallaal u ah qofka muslimka waxaa tallaal u ah caqiidada saxa u helo caqiidada saxi waxay sheegaysaa maxaad u noosha dunidan maxaad u timid xaggaad ku socotaa maxay noloshaadu ku dambayn doontaa haddaad atheist qaadato atheist noqotid nimaan ilaahayba rumaysnayn diinba rumaysnayn waxaad noqonaysaa insaan aan garanayn meelu ka yimi iyo meelu ku socdo meeshaad ka timi waxaad isaga haysataa daayarada iyo kuwa inaa walaala ahaydeen oo awow hore idin wada dhalay meeshaad u socotaana waxaad u haysataa ciidan kaa hooseysa war inay taho waxba kale ka dambaynin marka nolosha o dhan waxaad u haysataa nolol aan qiimo badan samaynaynin nolol aan qiimo badan samaynayn laakiin qofka muslimka caqiide islaamiya haystaa wuxuu rumaysan yahay dunidan inay hadaf leedahay ilaah abuurtayna inuu jiro adigana in shaqo laguu diray ah inaad rabbigaa caabudo cibaadadiisuna inay tahay waxa hagaajinaya adduunkan inaad qof mudma-in oo degan oo xasiloon oo caqligiisa qaba ku joogtid xoogsatid oo noolaatid aakhirana aada janno geli kartid waxaan leenahay marka waxa koowaad aada u baahantahy waa caqiida walidalik bu nabigu wuxuu leeyay ina rabbaka la yacjabu lishaabi laa sabwata lah ilahay wuxuu la yaabaa ninka dhalinyarada ah ee aan dhacdhaca lahayn aan weecweecadka lahayn nin dhalinyaro oo aan weecweecad lahayn waa qof dhalinyaro oo toosan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa 7 ayaa jira qiyaamaha qiyaamuhu waa meel dhib badan waa meel 50,000 oo sanadood la taagnaanayo 50,000 years ayaa maalinta qiyaamutay 50,000 ee sanadood waxaad hoos taagan tahay cadceed qof waliba wuxuu dhididayaa intuu dembi lahaa dunidan 50 sanadood baad ku noolayd laakiin 50,000 oo sanadood baa dadka la xisaabaya min aadam ilaa ka u dambeeyaa taagan waxaad taagan tahay adoo qaawan oon waxba haysanin dadka badh bay laakiin noloshaasi u fududaanaysaa yaa ka mid ah nabigu wuxuu uhi 7 jira hoos helaya meel hadha iyagu helaya marka dadku cadceedda taagan yihin 7daa waxaa ka mid ah ninka madaxda ah ee cadaaladda sameeya waxaa ka mid ah qofka dhowrsoon ee dhalinyarada ah shaabu nasha'a fi cibaadat illah qof dhalinyaro ilaahay cibaadadiisa ku koray cibaadada isagoo dhalinyaranimada waqtiga qofku ugu firfirdhadka badan yihi hadduu waqtigaa isku dayo inuu nafta xakameeyo deganaado abaalmarkiisu wuxuu noqonayaa maalinta dadku wada dhibta qabo inuu isagu hoos helo shaabun nasha'a fi cibaadat illahi buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam waa 7 qof waxaa ka mid ah kii sadaqada badnaa ee midigtiisa waxay bixiso bidixdiisu aanay ogeyn waxaa ka mid ah kii gabadha quruxda badan ay u yeedhay ee magaciiya maamuuska leh ee yidhi ilaahay baan ka baqaya waxaa ka mid ah kii intuu habeenkii salaatuleyl isu taago keligii isagoo ilaahay baryayo u tukanaya ilmadu ka timid waxaa ka mid yani kuwaasa ka mid ah
toddobadu nebigu sheegay laakiin inagu waxaynu u soconnaa shaahidka ah shaabun nasha'a fii cibaadati illah nin dhalinyaro ah oo ku barbaaray ilaahay diintiisa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay shan horteed ka faa'iidee buu nebigu yidhi iqtanim ka haniimayso hiya haniima haniimada waxaa la yidhahdaa qofku markuu dagaalka galo ee uu meesha qabsado wixii ay xoolo heleen baa haniimo la yidhaahdaa yacni haniimadu waxay sheegaysaa inaad dagaalkii intaad guulaysatay weliba aada hanti soo heshay halkan waxaa laga dhigay kaanamaa nolosha inaad dagaal kula jirto nolosha dhexdeeda inaad halgan ku jirtid dabeetana nebigu wuxuu yihi shan ka haniimayso shan kale intaanay ku helin shantan laga haniimaysanaya waa maxay geeri noloshaada ka haniimayso intaan geeridu ku iman maalintaad dhimato dee kitaabkaaga uu xidhmaya marka haddii 50 60 70 yearska aada nooshahay ayaad shaqayn kartaa khayr iyo sharba waxaa la yihi ka haniimayso inta aada caafimaadka qabto intaanad bukoonin qofku markuu bukoodo waa caajis waxba ma qaban karo sariirta haddaad saarantay you can do nothing waxba qaban kari maysi markaad se caafimaadka qabto waa waktigaad wax qaban karto haddaad caafimaadkaba dareemi weydo inuu nicmo iyo culays kugu noqdo maxaanu qabanaa unaad tidhaahdo intaad waagu kuu bariyo waxa laaliya waxaan qabtaba garan maayo waa dhib caafimaadka waxaa dareemo qofka dhakhtarka taga haddaad dhakhtarka dadka buka soo booqatid dhibta haysata iyo mashaa markaasaad waxaad garanaysaa inaad adigu nimco ku jirto laakiin markaad suuqa iska joogto inaad nimcaysantay moogi mid intuu subaxii soo tooso idhaahda alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin saaka waan caafimaad qabaa wax yidhi miyaa leedihi maba xasuusanaysid laakiin subaxa aad soo kacdo iyadoo beerka lagu hayo ama madaxu ku xanuunayo rag unba maanta caafimaad qabo iska rooraya baad is leedahay ninunba waxaasoo nimcaa haystaa anoo qolkaan dhex fadhiya waa kici kari lahay nabigu wuxuu ina leeyahay ka haniimayso firaaqika qabla shughlik inta aada timeka haysato inta aanad mashquulin qofku markastoo da-diisu sii kortaba mashquulkiisaa sii bata waktiga keligii ma yeesho qofku markuu dhalinyarada yahay waktiga keligii baa le cidi lama laha caruur ma maamushid cid kale ma maamushid naftaadun baad maamushaa mas-uuliyaad weyn oo ku saaran oo cid kale kaa sugaysaa ma jirto laakiin markay da-du soo korodho markaad 3 caruuro dhashid ee lagu yidhaahdo lagsayalkuu kala shaqee 3 saacadood la shaqeynaysaaba dhib kugu ah idan markaa waad mashquulaysaa waktiga waa lagula leeyay bulshadu waxbay kaa sugaysaa reerku waxbuu kaa sugayaa caruurtu waxbay kaa sugaysaa waada waktigaagu tiro badan yihin wuu yaraanaya laakiin markaad dhalinyaro tahay 24 saacadood adaa iska leh laakiin haddaad ka dhigto inaad seexato iyo inaad boodboodo bes waad khasaaraysaa in hurda iyo in boodbooda haddaad ka dhigto waktigaagii o dhan markaa nebigu wuxuu ina leeyahy alayhi salaatu wasalaam firaaqadaada ka faa'iidee inta aanad mashquulin dadka badh baa firaaqadii iyadoo xanuun ku noqotayba oo laniyo maxaan qabtaa waktigii waxaan ku dilaba waa garan waay waa qofka marka hadafku ka lumo intuu soo tooso wuxuu qabtaba qofka bini aadamka hadduu garan waayo waa qof aan hadaf lahayn meelus target ma lahayn hadafku waa target yool aad ku socotay ma jirin marka waxaad garan waaysaa dee waxaad qabato laakiin haddaad target lahayd waktiguba waa cidhiidhi jadwalkaagii markaad eegto maanta waxan baad qaban lahayd waxan baad kusugaya waxan baad akrii lahayd meeshan baad tegi lahayd ciddan baad caawin lahayd jadwalkaagu waa buuxaa laakiin marka aanad hadafba lahayn jadwalba ma lihide subxi markaa soo toosta ma soodhasa anigo saaka maxaad qabataa hurdada ma iskaga noqotaa waa ka wanaagsanaya aan islahayn suuqa ma gashaa wax uu qabto markuu waayo tolom iska seexdaaba nabigu wuxuu kaloo yihi shabaabak qabla harimik ka faa'iidee dhalinyaronimadaadi inta aanad gaboobin marka la gaboobo ama wakti la soo gaadho caqligu wuu bataa laakiin jirhkaa ku gabaya wixii aad ka fekeraysid ma wada qaban karaysid wax qor baad is leeday in yar haddaad qorto waad daalaysaa wax akri baad is leeday in yar haddaad akri waad exhausted baad soo gaadhay wakti uu jirhkii kuleeyahay waxaan ma qaadi kara baad joogtaa caqligiise uu kuu batay oad si leedahay malaa wax badan inaad qabato ay ahayd dhalinyarada waa cagsiga inta badan
caqliguna wuu korayaa, jidhkuna waa markuu xoogan yahay, waxaad rabto ood qaban karaysaa everything. therefore waktigaad wax qaban karaysay haddaad waxba qabsan weydo hadha waad calaacali. berigaan dhalinyarada haddaasa waxaad qof aragtaan waa professor, cilmuu leeyahy, kan buu leeyahy, macnaheedu waa maxay? waktigu dhalinyarada habuu dadaalay weeyaan. waktigu dhalinyarada habuu wakti bixiyey. ilaan inta la riyoodo habeen inta la seexdo professornimada laguma riyoodo, ama dhakhtarnimo inta la seexdo laguma soo riyoodo, ama xoolo inta la seexdo laguma soo riyoodo. laakiin waa maxay? waktigii uu baahnaa inuu wax invest gareeyey harvester, waktigii wax la goosanayana waxbuu goosta. haddaad waktigii wax la beerayay seexatid maxaad umalaynaysaa inaad goosanayso? de markay dadku beeraha goosanayaan taad way engegnaanaysaa, ila waxba kumaad ridin waktigii la rabay inaad ku rideen. dhalinyaronimadu waa waktiga la rabo inaad wax harvest, inaad wax beertid. laakiin dhalinyaradu waxay isweydiisaa inta badan waa de inaan shaqo tagaa maanta, war shaqadan iyo waxaan 10 sanadood ood soo xamaalaysay, 2 sanadood, 1 sano aad profession ku shaqaysaabaa ka lacag badan. 10 sano waxaad xamaal ka soo waday, 1 sano markaad soo baxdo ood profession leedahay, waxa ku soo gala waa wixii 10 sanaba ku dhaafay 1 sanaad ku keeni kartaa. laakiin yay kula macaananay 5,000 iyo 10,000 hore. idan waxaad u baahan tahay waktiga kani waa waktigaad investmentka samaysanaysay, waa waktigaad wax maal gashanaysay. maxaad maal gelinaysaa? cimrigaaga. waxaa lagaa rabaadna inaad maal gelisaa waa cimriga. cimriguna waa maxay? waa secondiskan iyo minuteskan iyo saacadahan weeyaan. de cimriga lagu sheegaya waa intaa. markaad leedahay 20 sanaan soo jiray, macnaheedu waxa weeyaan intaasoo minute iyo intaasoo second iyo intaasoo saacadood baa soo joogay. maxaad ku qabatay? haddaad wax gelisay harvest wuu fiicnaanaya, goosashadu way fiican tahay. haddaad waxba gelinna ma fiicnaanayso. saa daraaddeed buu nabigu wuxuu leeyay shabaabaka qabla harimak wa ghinaaka qabla faqrik. markaad haniga noqotona inta aanad faqiirin ka faa'iidaysanaynin. markaad hanti hesho, cilmi hesho, garaad iyo aqoon hesho, wuxuuba waa haninimo, waa nimcooyinka ilaahay ka mid oo ilaahay ku siiyey. markaad cilmiga heshay haddaad waxba ka faa'iideyn weyd oo la seexatid, cid bari weydid, cid wax ku anfici weydid, waxba tari weydid, ma fi faa'ida, manfac badan ma leh. idan waxaad u baahan tahay inaad ka faa'iidaysid. walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahay aakhiro laa tazuulu qadama cabdin yowma alqiyaama. qofnaba labadiisa adin meeshuu taagan yahay aakhire kama dhaqaaqayaan, meel basaa lagu qotominaya, tallaabo laguma ogola ilaa aad su-aalaha soo socda ka jawaabtid mooyaane. su-aalaha lagu weydiinaya aakhira waa maxay? waxaa lagu weydiinayaa cimrigii maxaad ku bixisay? cimrigaagii maxaad ku bixisay? cimrigu waa inta aynu noolay, ee saacadale, ee sanadale, ee bilale, ee caynkan. saacad kasta oo kaa khasaartay aakhiro dhib bay kugu haynaysaa. saacad kasta oo aanad waxba mid adduunya mid aakhira toona shaqaynin, aakhira dhib bay kugu haynaysaa. saacaddaad xataa tarfiiha samaynayso, saacaddaad nafta picnica yaro gelinayso, waa inay noqotaa saacad macnaheedu yahay ta dambe si ay midho badan u goysid. waayo haddaad shaqada isku xidhiidhiso saacadahaaga dambe waxay noqonayaan saacada aan midho badan dhalaynin. matalan waxbaad akhriyaysa, 2 saacadood baad akhriyaysa, saacad waxaa laga yaabaa saacadda ku xigta waxaad akhriyaysa inaad wax yar ka fahamtid. laakiin haddaad in yar tanshiid yaro samayso, koob shaaha yaro cabtid, wax yaro qabatid, waxaad kusoo noqon kartaa adigoo maxay haddana more energetica. marka saacadda xataa aad tarfiiha samaynayso ama aad cayaar tegaysa amaad waxaa qabanaysaa waa inay noqotaa saacad aad ugu tala gashay inay ka midho dhaliso maxay? saacadda ku xigta oo aad more energetic adiga oo nashiita aada wixii kusoo noqotid. waxaa lagu weydiin doonaa wixii aada shaqaysatay xaggaad ka shaqaysatay, ma xalaal bay ahayd, ma xaaraan bay ahayd. waxaa kaloo lagu weydiin doonaa wixii ku soo galay haddaabay xalaal ahaayeen xaggaad ku bixisay markii dambana, ma xalaal baad ku bixisay mise xaaraan baad ku bixisay. waxaa kaloo lagu weydiin doonaa wixii aada cilmi baratay maxaad ku qabatay, mid addunya mid aakhira, maxaad manfac ka keentay. idan ayuha alikhwa, qofka dhalinyarada waxaynu leenahay dowrka lagaa rabaa ee waalidku uu kaa sugayo koowaad waa 2 shay.
waa inaad mutadayin noqotid inaad ilaahay ku xidhnaatid waalidkaana way farax gelinaysaa raalli ahaanshihiisaad helaysaa raalli ahaanshiye allana waad helaysaa subxaana wa tacaala ka labaad inaad waxbaratid tasallux bilcilm waalidkaana inaad shaqadaadii hayso u arkaya bulshaduna inaad shaqadii lagugu talagalay haysaabay u arkaysaa bulshada dabadeed way ku caawinaysaa oo dawladdu waxanay waxbarashada bilaash uga dhigtay ee maalka kuu siinayso ee istabediga lagu siinaya waxaa lagu siinaya maaha inaad cunto waxaa lagugu talagalay inaad noqoto qof bulshadu ay ka faa'iido qof mustaqbalka midho dhalaya inaad noqoto waalidkuna waxaanu isna ku invest garaysanayaa wuxuu rabaa inaad waxbaratid ood mustaqbalka qof waxtaraya noqoto markaad dhalinyaronimada buuxiso waxyaabaha mujtamaca anfaca waxaa ka mid ah inaad reer samaysid inaad suuqa gelid shahwaadka inaad meel cidlaa ku shushubtaa waa wa'di waa xabaal nololin waxaa la rabaa meel xalaala inaad la doolatid saa daraaddeed buu nabigu wuxuu leeya ya macshar shabaab man istataaca minkum ulbaa falyatazawaj dhalinyaroy war ninkii guursan karo guursa buu nabigu yihi calayh isalaatu wasalaam guurso guurku macnihiisa waa maxay macnihiisa koowaad waxa weeyaan inaad mas-uuliyad qaado reerkan kugu soo biiray waa mas-uuliyad gabadhu gurigan cusuba ay tagtay awal gurigii hooyadeed bay joogtay iminka guri iyada la rabo inay mas-uul ka noqoto nin iyo carruur iyo waxa joogo o dhan waa mas-uuliya waxa koowaad ee guurku yahay shaygiisa labaadna waa nasl in la helo ubad bulshada wax kusoo kordhiya shaygiisa saddexaadna waa dhowrsooni in la helo xumaha inaad ka dhowrsanaato dhowrsoonidu bulshaday dan u tay maanta xanuunada ugu badan ee yurub ku faafaa can ariiqi zina bay ku faafaan xanuunada ugu badan infectious diseaseska yurub faafa meelaha lagu faafiyo ugu tirada badan leh waa galmada xaaraanta ah waayo ninku hadduu ku koobsado cidduu guursado gabadhuna ay ku koobsato cidduu guursado xataa iyaga haddii xanuun uu ku dhaco iyagu ku koobnaanaya laakiin haddii suuqa maanta caawa la wada galo discoteega oo berrina discoteeg kale la wada tago iyo tobori mid xanuunsanaya hadduu soo galo usbuuc mooy magaalado dhami sumoobaysa laakiin hadduu guursado xataa isaga iyo gurigiisunbuu ku koobnaanaya waana laga daweyn karaa idan bulshada dhib bay ku tahay zinada tan iyo waxa kani bulshada baaba-eeda weeyaan adigana dhib bay kugu tahay waxaa guurka loo sameeyey markaa waa maxay waa lilixsaan inaad dhowrsanaatid bulshaduna kaa dhowrsanaato xumahaaga iyo dhibtaada bulshaduna inuu ka baxo saa awgeed buu nabigu wuxuu leeyay dhalinyaro ninkii guursan karo guurso shayga labaad haddii aanad markaa guursan karaynin markaa waxoogaagii adduunka aad rabtay isuguma kaa beegmin guriga yaraa wixii aad doonaysay islamaad helin ama si kale aad mashquuluto waxbarasho iyo wax kale meel kale raafka kugu haysa prioritiskaagii kala horreeyey baanad qaar weli buuxin markaana nebigu wuxuu yidhi facalaykum bisawm sooma baa la yidhi fa ina lahu wijaab yani mar kasta dhowrsoonidaada ilaali markaana isku day inaad soonto isku day daaqadaada inaad si kale u tafriiriso enerjigaaga inaad wax kale ku bixisid haddaad waxbarasho iyo qiraa'o iyo kan ku bixisid gabadh uma baahanaysid haddaad se t v-ga iyo dhereg iyo sariirtoo la jiifo ku bixisid habeen iyo maalin ba waad fakeraysaa ila shaqo kale ma hayside caqligaagu mashquul maaha jirkaagu mashquul maaha habeen iyo maalba intaad wax cunto haddaad sariirta fadhido una t v-ga daawatid lagu hayn kari maayo haddaad se shaqo leedahay mid addunya mid aakhira wuxuu ku foogan tahay wax akri cibaadayso kac soo shaqo haddaad waxqabad ku maqan tahay energygaagi waad use garaysa you don't have excess energy aad meel kale la qabatid ma haysid you are tired waxaad guriga imanaysaa adigoo u baahan inaad seexatid oo cabaar nasatid baad guriga imanaysaa idan ayuha alaxiba abrazu taxadiyaat dhalinyarada hortaagani waxa weeyaan altazyiin waliqraa galbeedka dadka wax lumiyaa waxbay qurxiyaan oo maldahaan
discoteega iyo aflaamta iyo waxa kan maxaa boqolka laydh loogu shidaa waa in lagu waalo de yani shaygu markaanu xaqiiqo ahayn jirta manfaca dunya aakhira toona lahayn waxaa la isku dayaa in la qurxiyo ilaa qofka caqligiisa lagu qurxiyo ay wax qurux badan la kuula ekaato waxaa lagaga badbaadaa waa inaad ashyaada xaqaa'iqdooda ogaatid xaqaa'iqda waxaa lagu ogaadaa can ariiq alcilmi walcibaada inuu qofku wax barto oo cibaadaysto dhalinyarada waxaa hortaagan oo bulshada waktigan dhibta ku ah waxaa ka mid ah dhaqan xumada bulshada ka dhex jirta oo siiba da-yartan dambe bulshadoodu ay tiro badan tahay dhaqan xumooyinka jira dhaqan xumada maxaa lagaga baxaa laba shay altaqwa walcifa inaad ilaahay ka cabsatid oo ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahy waman yataqi llaha yajcal lahu makhraja qofkii ilaahay ka cabsada ilaahay wuxuu sameeyaa ayi mashkila nololeeda ka hor timaada wadda u ka baxo ayi mashkila nololeed iyo cifa dhowrsooni qur-aanka ilaahay laba qof oo mas'alo lagu ammaanay baa jira nebi yuusuf qur-aanka waa lagu ammaanay maxaa loo ammaanay waxaa ka mida wixii lagu ammaanay inuu haweenka ka dhowrsaday maryamana qur-aanka waa lagu ammaanay maxaa lagu ammaanay maryama waxaa lagu ammaanay walatii axsanat farjaha baa ilahay yidhi haweeneyda maryam la yidhaahdo nebi ciise hooyadii waa haweenta qura ee magaceedu qur-aanka ku qoran yihi haweeney kaleo magaceedu qur-aan ku yaalla ma jiro waa haweenta keliya suuraddan magaceeda la yidhaahdo suuratu maryam waa haweeneyda qura ee 26 jeer magaceeda lagu sheegay 26 times ayaa magaceeda qur-aanka kusoo arooray waa haweenka ilaahay tusaale uga dhigay dumarkuu nebi maxamed qabay calayhi salaatu wasalaam fi suurati alaaq suuratu lima tuxarim 6 dumara laga warramaya labadii dumarka ee nebigu qabay ee nebiga masalada ku sameeyey ee la yidhi faqad saqad quluubukuma caaisha iyo xafsa waxaa laga warramay laba dumara oo nebiye qabeen laakiin gaalo noqday oo halaagsamay imra'atu nuuxin wa imra'atu luut waxaa laga warramay laba dumar oo hagaagay oo gabadhii uu boqorkii fircoon la odhan jiray qabay wa imra'ata fircawn iyo wa maryam alatii axsanat farjaha fanafakna fiihi iyo maryamadii farjigeeda dhowrtay maryama ilaahay qur-aanka wuxuu kaga warramay ambiyada sida mucjizaadkooda looga warramay ayaa maryamo karaamadeedana laga warramay inuu nebi zakariya u soo galay iyadoo markasta raashin iska haysata oo uu weydiinayey kulama dakala calayha zakariya wuxuu u yimaadaa un iyadoo raashin haysata xagaad ka keenta markaasay tihi in allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab maryamadaasi qur-aanku uu ammaanayo waxaa lagu ammaanay inay qaanito ahayd tu cibaado badan inay ahayd iyo tu farjigeeda xifdisay inay ahayd dhowrsanaatay idan ayuha laxiba qur-aanku dhalinyaradu ammaanay nebi yuusuf oo dhalinyarana waa la ammaanay oo gabadh intay albaabada u xidhatay diiday waqallaqat ilabwaaba waqaalat hayta lak qaala macaada allahi inahu rabbii axsana mahwaaya waa la ammaanay maryamana waa la ammaanay labadaba waxa lagu ammaanay inaanay suuqa gelin ayaa labadaba lagu ammaanay ilahay ninka dhalinyarada markaa wuxuu leeyay waliyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadli ha dhowrsanaadaan kuwii aan helin waxay ku guursadaan inta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qani ka yeelaya baa la yidhi dhalinyaronimadu dhibaatooyinka ay leedahay waxaa ka mid a faqriga ardaygu waa faqiir dhalinyaradu inta badan waa faqiir laakiin waxay dhahdaan faqiirka in wax la siiyo iyo in la baro sida loo waxay dhahdaan miskiinka kalluun ha siina waxaad bartaa bay dhahaan sida loo kalluumaysto miskiin meel fadhiya dad maalin walba kalluun u keento waxa ka roon inaad bahalka yar iyo intaa udhiibto aada barto sida badda kalluunka loogala soo baxo waayo uu kaa maarmaya kuma sugaye baddu berri kala soo baxaya dhalinyaro waa sidaa waxaa ku jirtaa dawrkii laydin bari lahaa saa loo kalluumaysto ha degdegina markaa
waa dhalinyaronimadu ama ardaynimadu ama weyno ama yaro haddaad arday noqoto ardayga iyo faqriga waa wada socdaan inta badan ardaygu waa nin baahan waayo waa nin wax kale ku mashquula marka ardaynimadu nooc min alfaqri bay leedahay waxaa u baahantihin inaad maxay sabirtaan oo aad ka mid noqoto ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya fuqaradii mu'miniinta maxaa la yidhi yaxsabuhum اljaahilu aغniyaءa min atacafuf qofkaan xaalkooda ogeyn wuxuu moodayaa inay hani yihiin dhowrsanidooda daraaddeed baa rabbi leeyahy yani dadkii fuqarada muslimiinta ah dad wax barya dad wax hada dad mashkilo sameeya dhalinyaradeenna inta ugu badan maxaa geeya suuqa daroogada waxaa ugu badanay geeya marka hore daroogada cab ama kan maaha waa laba habeen intaad ku tuurato waxaad heli doontaa 4 kun deetana iskaga tag dhowr casho markuu ku tuurta 4 kun helana wuxuu is odhanayaa wallahi de halkaa meel ka fududayba ma jirto mala dhaqaalaa laga keenaayo waxbarashadaadana waad iska wadi doontaa habeenka sabtida ama axaddana waad ku tuuran doontaa ee wadasha dee aakhirkana waa la tacawudaa inanka yari sigaarka cabaya marka hore wuxuu is idhaahdaa just one time see it tijaabi bal horta baal kusoo noqda deetana uu qufqufacaa maalintaa hore dhowr casho markuu tijaabiyaa marka dambena jidhkaa barto wuxuu idhaha wallahi sigaar baa hayaba waa ka burbursiiya waxoo dhan faduul baa dadka u geysa laakiin haddaad faduushaa iska joojisid waayo sigaar nin u baahday oo sigaarku waa wax qurmuun soo maaha oo qadhaadh qof bini aadama qurmuun iyo qadhaadh doonaya ma jiro oo is idhahda qurmuunka iyo qadhaadhkaad u baahantahay lakiin marka hore tijaabi just taste it waxuu dhadhamaya ayaa geeya marka dambena wuu la qabsadaa khamri tijaabi just taste it marka dambena wuu la qabsadaa darooga tijaabi dhalinyarada ciyaal iskuulka wax isweydiya weligaa ma tijaabisay anigu mar baan tijaabiyey buu isweydiiya ama 2 ama 3 ama 4 3 iyo 4 la tijaabinayo unbaa qaar ku hadhaan idan waxaynu leenahay haddaad rabto dowrkaaga bulsheed waa inaad dhowrsanaatid waxaa kusoo koobaya marka waalidka inaad kalsoonidiisa hesho iyo bulshadaad la nooshay inaad kalsoonideeda heshid intaas baan u arkaa inay tahay kow ninka dhalinyarada ah kaalinta uu bulshada ku leeyahy waalidkaa sidaad u heli kartaa kalsoonidiisu waa 2 shay baan ku idhi waa inaad qof mutadayin oo diin la noqotid waalidkaa uu ku farxaya waan kugu kalsoonaanaya haddaad si leedahay uu kaa shakisay ama uu ku canaanta ama uu ku maalintaasaa maagis iyo canaan u dambaysa bal mutadayin noqo inaad aragtid inuu dib kuu maago shayga labaadna waa tasallux bilcilm inuu ku arko inaad wax baranayso qof mustaqbal ku foogan inay tahay labadaa hadduu waalidkaa helo uu farxaya bulshaduna haddii ay arkaysa waxay ku gashatay inaad kaa soo ceshan karayso oo kugu farxaysaa oo ah haddaad si fiican wax u barato dabeetana shaqo tagtid waxaad qaadaysaa mas-uuliyaadkeedii ka muslim ahaan shay labaad bay bulshadu kugu leedahay shayga labaad ay bulshadu kugu leedahay waa maxay ka muslim ahaan waa inaad islaamka soo bandhigtid islaamka inaad soo bandhigtid islaamka see loo soo bandhigaa waxaaba laga yaabaa inaan anigu in badan garanaynin ama inaanan sheekh ahayn waa run dhammaanteen wada sheekh ma noqon karno laakiin dhammaanteen islaamka mas-uuliyaddiisa waynu wada qaadi karayna islaamnimadu waa dhaqan iyo caqiido caqiidadu waa wax madaxa gala waxa madaxa gala madaxaaga waxaa ku jira cidina garan mayso socankaa maaha laa ilaha illa allah maxamed rasuulullah inay ku jirtay inay ilxaad kugu jiro cidina garan mayso adaa isla ogiya rabbiga qalbigaaga waxaa ku jira adiga iyo rabbigaaba isla og laakiin basharku wuxuu gartaa tadayunka la sheegaya u bini aadamku gartaa waa dhaqanka waa cultureka waa qaabka ad u nooshahay qaabka ad u nooshayba ama noqonaya qaab dadka diinta ugu yeedhaya ama dadka diinta ka eriyaya kaalinta dhalinyaronimeen kaa raba markaa waxay tahay dhaqankaagu inuu noqdo mid dadka kule war islaam sidaydoo kale aad wanaagsanaatide war islaam sidaad ugu odhan kartaa kow waa inaad mawaahiiqda oofiso almawaahiiq alcuhuud ballamada iyo contractyadaad gasho inaad oofiso iskuolka contract baad gashaa soo maha ha waxbarashadu waa contract aad gelayso xisaskaa inaad soo xaadirtid
waxaa inaad qabatid homeworka inaad ka soo shaqaysid bugaagta inaad soo akridid waa waxa lagaa rabaa markaad leedahay class 1 baa ku jira class 1ka macnihiisu waxa weeyaan wixii contract yaalay meesha tan baan fulinaya nolosha kale wixii aad ballan ka gasho waa inaad fulisaa cidaad la ballanto waqtigaad la ballantay waa inaad u tagtaa cidaad wax u ballan qaaday waxaad u ballan qaaday waa inaad sooda u fulisaa ballan muslim iyo ballan gaali ma kala jiro ballanku waa ballan gaal iyo muslim dhaqanku waa isku mid gaal iyo muslim gaalkana waa khiyaameynaya muslimkana daacad baan u ahaanaya ma jirto islaamku waa isku mid bini aadamku waa bini aadam markay mucaamalo tagto kala sooc ma leh waa inaad akhlaaqiyaadka islaamiga gaal iyo muslimku ma kala soocaysa waa inaad si ula dhaqantaa maalan cadaalad gaal iyo muslim waa inaad u cadaalad samaysaa islaamku cadaaladda wuxuu yaqaanaa alcadaala almutlaqa waa madax banaantay xataa kuwa colka ku ah ilaahay qur-aanka muxuu ku tilmaamaya dadka mu'miniinta maxaa la yidhi u cadaalad sameeya kuwii idinka soo saaray baytullahi alxaraamka ee idinla diriray baa ilahay leeyahy ilahay wuxuuna leeyahy walaa yajrimanakum shana'aanu qawmin cala an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu lakum cadha adduul u qabta ayay cadaaladda ku weydaarinay qofkan waa is haysaan haddana shareecadu waxay ku faraysaa inaad u cadaalad samayso waxaynu leenahay qiyamka islaamiga inaad faafisaan baa mas-uuliyaddeena oo ah almistaaqiya credibility inaad yeelato qofku goormuu credibility yeeshaa hadalka iyo ficilkaba markuu ka run sheego credibility yeeshaa qofka bini aadamka mistaaqiya dadnimo waxaad yeelanaysaa markaad waxaad tidhaahdo waan qabanayaa inaad qabatid waxaad ballan qaadidna aada fulisid hadalkaaguna run noqdo ficilkaaguna run noqdo hadalkaagu yuu run u noqonaya bini aadamka o dhan dadka run u kula dhaqan ama gaala haadaan ama muslim ha haadaan ficilkaaguna run ha noqdo wixii mas-uuliyada aad qaadda tiraa waxaasaan samaynaya samee intaa kadib ereygan idinku gabagabeynaya markaa wuxuu yahay dhalinyarada inta badan waxa ugu culuse ku dhaca waxaa ka mid a inuu noqdo imacada mataqaana soomaalidu waxay tidhaahdaa dameeri dhaan raacda dameeri dhaan raacda mataqaana dhaan iska socda dhaanku waa dadkii biyaha doonanayay ayaa dameera kusoo baxaan wa iska dabagalaan ma oga meeshay ku socdaan laakiin way raacaan inaad cid walba waxay rabto iska raacda sax maha waa inaad xaqaa'iqda ogaataa tacaabirta qosol kale laga sheego ninkii gandi la odhan jiray baan idin sheegaya gandi waa maqasheen soo maha india ninkii xornimadeeda raggii wax ka raadacaynaya gandi wuxuu ahaa nin dhaqankiisa ku adag laba go-oo yaryaroo cadcad buu xidhan jiray oo go-a hoose inta la duuduubo baa dabada la soo gelaya xagga dambe dabagelis buu lahaa xataa waxay yidhahdaan markuu galbeedka ingiriiska u imanaya shirarka la gelayay ribuu soo kaxaysan jiray ridiisa caanaheedu maali jiray waxoodaba ma cuni jirin gandi baa yimi bay yidhaahdeen gandi baa markaa oday ingiriis wuxuu ku yidhi what is this isagoo sheegaya maradan dabada ugu jirta ee dabageliska ah gandi waxay yidhahdaan kii gaalka ahaa isagana intuu taayigiisii qabtay ayuu ku yidhi what is this gaalkii wuxuu yidhi baa la yidhi this is necktie yani waa baalka luqunta lagu xidho necktie la and this is back tie buu yidhi gandi yani gandi wuxuu tilmaamaya idina halkan baa ku xidhaan anna dabadaa ku xidhay buu leey waa mara uun labadeenu waa qofba jirkiisu meel ka soo yani wuxuu tilmaamayaa necktie-gu inaanu ka fiicnayn back tie-ga macnaheedu maxay tahay culture-ku ha qaadanin in lagaa culture qurux badan yahi inaad qof soomaaliya oo dhaqan soomaaliyeed leedahay waa wax lagu faamay it's your back tie waa fahamteen bayla ha ka faanin nimaa tahay ha ka faanin qof muslima oo soomaaliyeed baa tahay oo culture-kiisa iyo dhaqankiisa iyo diintiisa haysta dawrka ay bulshadani kaa sugaysaana waalidkaana waa labadaasu kaa sugayaa bulshadanina intaasay kaa sugaysaa islaamkuna wuxuu kaa sugayaa baynu nihi inaad noqoto daaci oo aad diintan u cardidid u bandhigtid dadka kale qaabkaad ugu bandhigaysaana hadal maahee
waa inuu culture-kaaga ka muuqdaa wixii diintu sheegaysay. sala allahu cala nabiy maxamed wala alihi wasaxbi wasalam. alxamdu lilah rabbi alcaalamiin.